عشان والقدر قرر وقفني يمينك مو قراري هذا حكم القدر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. dhammaan ku xiran janaalkayga waxaan leeyahay waa anigii mar labaad idin soo laabtay Marwan Fac Channel. kusoo dhawaada janaalkeena. maanta waxaan idin wadaa coffee dalgona coffee aan idin wadaa insha Allah taala. waxaan ka sameyn doonaa caanaha barafka iyo waxaan ka sameyn doonaa sokortaas insha Allah. caanihi koobkii aan ku shuban lahaa hadhowdii markii aan samaystane waa ii kaasa caanihi baaketkan igu jira insha Allah. caanaha doontidna adiga waa isticmaali kartaa marka masha Allah. waxaa u baahan tahay kaas xulbiskaas iyo weel u baahan tahay barafkan hadhow u baahannahay insha Allah. hadda waxaan ku soo qasan doonaa kafeega iyo sokorta insha Allah taala. la socod wanaagsan insha Allah kana faa'iideysta wax yar oo aad u macaan oo maaragtay Starbucks aad uga raysan doontiin waa insha Allah gurigiinana ku habaysan doontiin insha Allah. easy and busy aadna u macaan masha Allah. meesha waxaan ku shubanayaa hal qaado iyo bar kafee ah. kafeega caadiga waa inuu ahaado yani waxyaabo kale ku jirin insha Allah ama kafeega caanaha ku jira iyo waxaas oonan ahaanin. kafeegan kaligiis waa in laga sameeyaa kafeegan insha Allah. sokortii ay iga horeysay sokorteedu waa ii laba qaado kana waxaan ka dhiganayaa qaado iyo bar insha Allah oo aan u baahanahay. haddaa rabtid adiga sokortana waa ka badsan kartaa kafeegana waa ka badsan kartaa laakiin inaad isku cayintid ayuu wax yar oo qurux badan kuugu soo baxay insha Allah. waxaa u baahan tahay biyo yar oo lagu shubo marka biyo yariis aan ku shubaa insha Allah. biyahaas waa kala reebaya waliba inuunan zaa'id biyana kaaga noqonin dhafaaq adeegna uu kaa noqonin insha Allah. la soco si uu maaragtay waxay aan ka rabnay inuu sidaan ka rabnay inuu noo noqdo insha Allah. waa kaasa biyo zaa'idana ma ahan adeegna ma ahno yani aad dhafaaq ma ahan. so waxa waaye inaa sidaas oo kale ku ahaado almost waa u jeedin burtii oo bilaabay. marka waxaan sameynayaa kaamirada insha Allah taala meelaan iska dhigay si fiican oo maaragtay usoo saas oo kale usoo maaragtay qasaya. markaasa usoo qaso insha Allah taala isku soo noqon doona haduu Ilaahay yiraahdo sidoo noqda ay tusay wax kale kuma sameyn just waa bas waa si fiican aan isku soo dhaxgelinaa insha Allah ilaa uu maaragtay creamy ku noqdo insha Allah. oo gacan wuxuu u baahan yahay in adiga 2 to 3 minutes in si fiican oo maaragtay saas ugu falwiska ugu qastid insha Allah. waa kaasa masha Allah tabarakallah diyaar oo ii noqday creamy camal oo ii noqday ina caano ku dara camal aan malaysa wax kale ma waa biyihii sokorti iyo kafeegi bas saddexdaas shay waa wax meeshaas igu jiro oo saas ii noqday. marka waa inay sokorta dhan ay maaragtay si fiican ugu dhex qasantaa waayo daaba biyo ku dhex shubtay qasab wixii dhan waxay isku noqonayaan waxa smooth ah insha Allah. bas hadda waxaan ka baxsaday falwiskii meelaha iska dhigaya. hadda waxaan usoo jeesanaa caanaha iyo kafeega sidii aan maaragtay isku habeyn lahaa insha Allah. kafeegayga waa kaasa inaan san jeclahay siduu noqday iyo sida laga rabo insha Allah. hadda waxaan soo qabsaday labadii koob aan ku sameyn lahaa iyo chocolate dessert toppingkaas dessertiga toppingki lagu qurxiyo adiga chocolate dartid waa isticmaali kartaa hadartid toffee hadartid anything aad waa isticmaali kartaa ama strawberry ayagoo badan oo noocyo badan ha jirto. ani laakiin waxaan jeclahay chocolate. marka chocolate waxaan sameynayaa weelkan koobkan kusoo habeysanayaa saliid malidme ama zigzag ama adi sidoo ku noqdaba anyway saasaan ugu soo wareejinayaa. koobka kalena sidoo kale saasaan ku sameynaa si markii caanihi aan ku shubo qurux oo ii siiyo hadhowdin maadaama caanaha sokor aan ku shubin sokortan bas ay noo tahay wax yar oo macaan oo masha Allah ku sii noqonaya oo maaragtay chocolate ku carfiyo. marka waa kaasa la socod wanaagsan insha Allah. walaalahayga qaaliga waxaan rajeynayaa inaad ka faa'iideysatiin Starbucks ay iska hilmaamtiin iyo meelaha kafeenerayga laga soo qabsado maadaama lockdown-ka lagu jiro hadda xawaa aad uga faa'iideysan kartiin dhamaantiin insha Allah. share gareeya asxaabtiina gaarsiiya kuwa nagu cusub waxaan leeyahay welcome soo dhawaada waa channelkayga masha Allah. soo dhawaadaan leeyahay comment-ka ii reeba insha Allah taala.
waana kaasaa kana faa'iidaysta insha allah. Guriga carruurta loo sameeyo, odayaasha loo sameeyo, idinka naftiina u samaysta. Kaaliska aragan ku dhahay maasha allah. Shaqo badanna ma u baahna. Waqtiga samarka weliba markii lagu jiro aaday maaragtay qalbigana kugu qaboojina alaabtaaneeto adag ma aha wax always la cabi karo waayo waa iska dareemi kartiin alaabo maasha allah lagu cayili karo laakiin mar la iska gashta insha allah tacaala. hadda waa barafkii aan kusoo dhex ritay koobkii kusoo qaybsaday. hadda caanihii ayaan ku shubayaa. caanihii aan hadda ku shubanayaa. caanaha marka ma ku buuxinayo koobka dhan ma buuxinayay. waxaan ka dhiganaa haafkaas si kofeegii iyo qorxin kaleeton ku sameyn rababa aan ugu sii habaysta insha allah. haddaa rabto adiga kofeega keligiis waa ku reeban kartaa laakiin aniga alaabo kale aan kusii qorxinaya insha allah maadaama uu maaragtay alaab la rabo in la qurxiyo ay tahay. kofeegayga ii samaysnaay. kofeegan markaa dhalaalaya si makaa noqona ilaa 3 saacadood saasoo ku ahaana iyo ka badan weliba. saasaa ugu soo shubaysaa. haddaa rabtidna waa ka badsanay, haddaa rabtidna yacni haaf zaa'id ugama wada dhigaysid yacni wax yar oo adig kugu filan. mana la rabo caanaha dhan inuu madow kaa noqdo wada kofeegu kaa qaato. adig wax yar oo milk isleedahay kobashiin macaan badan noqon doona ayuu iska noqonayaa. I think waxaan buu isleeyahay kobashiinkana aad uga sii macaan. inta jecel qabowga maaragtay inay ku cabto kofeega 100% aad idin anfacaa idinkana. haddaaba dhadhamisid kulaylka dhan xitaa waa nacaysaa. midka kofeega kulul kofeegana samaysanaysaa. inkastoo qaboobaha la isticmaali karin annaga xaggeena Yurub only waxa waaye kaliya samarka kale bas sometimes lagu baashaala. koobkii kale haddana kusoo shubanaya insha allah. waxaan rajeynaa saasuu diyaar inoogu yahay kofee dalgoonaheenii. wixii dhan aan kusoo samaystay oo meesha ku jiro wax saas sii badanna maba ahaynba wax yaro 2 koob aniga aan u tala gashay waaye. haddaa rabtid adiga inaad samaysanaysid aadaa uga badsan kartaa kofeega biyaha sokorta mar walba aday isku cayin in yaroo kaala argada 4 koob iyo haddaa 5 koob iyo haddaa ka badan samaynaysid iyo haddii 3 iyo 4 intii ka badan ba adiga aad samaysanaysid kofeega 2 qaad 3 qaad uga dhigo sokorta 4 qaad uga dhigo sidaas oo maasha allah ku noqonaya qaxwaha ah. saas kofeegayga diyaar iigu yahay. haddana waxaan soo qaatay alaabtan oo kor lagu buufinayo dairy cream aan lahaa. kan waxa waaye waa light haddaa rabtid full fat ka isticmaali kartaa. waxa lagu qurxiyaa waxyaabaha ice creamka fruitka waxyaabahaas oo dhan dusha looga habeystaa. aniga marka meesha inta yaroo koobka ka dhiman ayaan rabaa inaan ku buuxiyo insha allah si uu maaragtay qurux iigu noqdo hadhowdina maasha allah macaan uuna alaab yaroo macaan oo samaysan waaye. saasaa ugu kor buufinaya ka kalena sidoo kale insha allah simple and easy waaye. wax adiga dhan 5 daqiiqo aan kaa qaadanaynin waaye. maaragtay wixii magaalada lagu gadaayeen aad ka taqaanid wax adiga gacantaada ku samaysatay gacantaada ku cilbaxdo gurigaaga joogtid maasha allah wana ka heli doontiin biidmillah sida annagaba uga helnaa soo tijaabinay. hadda chocolatekii hadday tahay tusaayo on saxanka aan koobka bismillah koobka aan ku wareejinaya haddana kor ugu wareejisanaya si aan ku qurxiyo maasha allah. marka alaab kala argo haddaa qaadada is dhex gelisid shaaha camal waxa u cabi kartaa isha koobka gacanta qabsan kartaa. haddaa rabtid straw haysatid kan lagu dhooqano waa gashan kartaa markaas ku dhex qastid hadba siday noqotaba maasha allah tabaarakallah. alaabteeni waa noo diyaar dalgoona coffee waa kaasa maasha allah 3 dabaqeyn oo dul saaran oo qurux badan oo kala argo noo noqday carafta macaanta kala argo ku sii dheer maasha allah oo qalbiga ku qaboojina maasha allah. soo tijaabi idinka leedakama sheekayn doono. I hope inaad ka wada heli doontiin meel walba joogtiin dhammaan Soomaali weyn oo dhan. waa walaashiin anfac Marwo Janaal. marka ku soo dhawaada janaalkayga inta cusub komadka iyo reeba haddaa ka heshiin maasha allah like-ta share-ka oo dadkii saaxiibtiin u sii share gareeya. mar labaad iyo mar saddexaad waxaan idin leeyahay soo dhawaada. assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. waxaan leeyahay subscribe gambaleelka furo si waxaan soo geliyo cusub aad u aragtid like waxaad ka heshid insha allah tacaala
share si ula wadaag asxaabtaada kaleeto.